waxa intaas dheer oo inta badan dhibaato ah oo dadka badan ama aysan fahamsanayn dalka bacdama uu khalaaso siyaasadeed muddo uu ku soo jiray maalin walba waxa imaanaya siyaasiyiin cusub sanad walba 4 sano walba siyaasiyiin cusub yaa imaanayay siyaasiyiin hor leh waa imaanayeen kuwii hore ma tagaan magaaladay kula joogaan waa active tiradoodan aad u fara badan yihiin marka haddaad tiraahdo 10 iyo 20 iyo 30 ka soo bixi kun yaa banaanka taagan oo careysan oo idaacadaha hor taagan facebookyada hor taagan oo kulligood shaqo doona shaqada rabaanna waa waxay yaqaaneen oo ay soo dhadhamiyeen maxaa yeelay continuity ma jiro oo maalin walba waxbaa la bedelaa waxaas la bedelana ee runtii waxay dhashay in la abuuro siyaasiyiin cusub oo aanan talantigooda laga faa'iideysan oo isla lagama faa'iideysan ha fogaanin magaalada ha ka fogaanin waa lagu yeeri doonaa qaar waa iska aamusan yihiin qaarna dagaal ay ku jiraan oo qayb waxay ka yihiin in lagu hadlahayo dawladda si loo ogaado ama loo xasuusto oo loo yiraahdo hebel waa qeelinayay bal ha loo yeero maanta waa caqabad dad badan aysan runtii ku baraarugsanayn intaas waxaa dheer shabaabkii oo annagoo dhan wada nacab oo dagaal nagula jira intaas waxaa weheliya dawlad goboleed oo isaga naftigiisu meel taagan oo madaxweyneyaalaha awoodda dawladda dhexoo kala raadinaya siyaasad dibadeed raba ciidan gaara raba inay samaystaan dastuur gaara leh marka iyaga naftigoodu haddii la isfahmi waayo waa meelo lagu soo dhex maro oo dawladaha shisheeye laga yaabi karo inay ku soo dhex maraan intaas waxaa dheer caqabada kale ku xiga dawladihii dariska iyaga naftigooda oo stakeholder ah oo national interest ku leh dalkii oo iyaga naftigooda raba inay saameyn ku yeeshaan waxa shaqeynaya hadday qaarkood ku jeclaan waayaan ama u arkaan inaadan la shaqeynayn waxay haystaan inay ku soo dhex maraan dawlad goboleed waxay haystaan inay ku soo maraan 2 kun oo siyaasiyiinta ahaa waxaa laga yaabaa inay ku soo dhex maraan xildhibaanadii waxaa laga yaabaa inay ku soo dhex maraan dawladda dhexdeedii hadba inta tabartoodu gaarsan tahay marka iyada naftigeeda waxa weeye inaad xiriir fiican aad la yeelato hadda waxaan ugu soo biiray marka khaliijka oo iyaga naftigoodu qayb ka ah hawlaha socda